Soomaali baraankigi meel baas buu inala maraya bariyahan dambe waxa bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ku soo badanayay wax loo yaqaan baraank dhalinyarta iyo da'yarta rag iyo dumar oo meelaha waxaad ku arkaysaa iyadoo la leeyahay hebel oo hebel baraank ku qabtay ama hebel oo hebel ka yaabsaday ama hebel oo hebel ka naxsaday laakiin waxaad isweydiisaa inanka iyo inanta duubaya baraankigaaga aad duubayso diinta ma u bandhigta waxa isweydiin leh baraankiyada hadda dhalinyartu ay duubayso ee la soo gelinaya baraha bulshada maxaa ku jira ee diinta khilaafsan waxaan leenahay waxa ku jira inta soo qodob ama arin oo diinta ka soo horjeeda oo inaan halkan ku soo koobi karay laakiin tusaale hadaynu soo qaadano waxa ku jira oo diinta khilaafsan badina ay ka midaysan yihiin in qofkii muslimka ahaa la argagax gelinayo laga naxsanayo arinka noocaasina diintu waa diiday xadiidka Abi Daawud uu soo saarayo culimada qaarna ay leeyihiin waa sugan yahay koox saxaabada kamid waxay warinaysaa iyagoo nabiga sallallahu alayhi wa sallam la socda maalmaha kamida in saxaabada kamidii uu seexday iyadoo qacantiisana xarig uu sitay uu ku jiro nin saxaabada kamida soo kacay si xariga qacantiisa uu uga saaro oo uu qariyo ama ula kaftamo dabeetana ninkii hurday baa booday isagoo naxsan markaas nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay la yahillu limuslimin an yurawwi'a muslima qof muslima uma banaana inuu argagax geliyo walaalkiisa muslimka ah sida darteed waxa ku jira baraankiyada hadda la wadwado dadkii oo la argagax gelinayo haba kala duwanaato qaabka loo argagax gelinayo ee looga nixinayo waxa kamida waxyaabaha mukhaalafaadka ee baraankiyada dhalinyartu ay duubayso ku sugan in gabdhihii Soomaaliyeed ee quruxda badnaa ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala qiimaha iyo sharafta uu siiyay kuna waajibiyay inay xijaabtaan oo jirkooda ay ka asturaan ajaanibta ay iyagoo qaawan ama maryo fiican aan qabin shalmad yar masar yar iyo wixii la mid ah xidhan ay iska duubayaan kamarada iska duubayaan ama laga duubayo dabeetana la soo dhexdhigayo khalaa'iq aan tiradooda la soo koobi karay dabeetana qof waliba uu fiirsanayo daawanayo arinka noocaasina waa arin diinteennana aan ku banaanayn dhaqankeennana aan ku banaanayn walidaalika ba xadiidka Abdullah ibn Umar wuxuu tilmaamayaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri almar'atu awra gabadhu waa awro weey awrana waxa la isku ogaa in la asturo oo waxa weeyaan la qariyo oo dadka iyo bulshada aan waxa weeyaan la soo dhexdhigin waxyaabaha khilaafsan diinta ee baraankiyada ku jira aad arkaysa waxa kamida in dhalinyar ajaanib kala ah oo rag iyo dumar ah ay isdhexgalayaan oo ikhtilaad u dhacayo oo jirkoodu mararka qaar koodu istaabanayo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu tilmaamay la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu midkiin in mahad hadida madax lagaga mudo iyo in gabadh ajnabi ka ah uu taabto oo jirkoodu ay istaabtaan labada arin waxa u khayr badan in maxaadka madaxa lagaga mudo ayuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu tilmaamay sida darteed waxa aad arkaysaa in mararka qaar kood ay dhalinyartu iska soo duubayaan iyagoo la faraka ciyaarayo oo jirkii istaabanayo isgaarayo iyadoo ajaanibka la kala yahay oo aan waxa weeyaan mahram laysu ahayn waxa kamida waxyaabaha la yaabo ee laga yiqiiqsoodo ee dhaqanna aynaanu lahayn diintuna aanay ogolayn in ay iska soo duubayaan dhalinyartii iyadoo ay iskorkorayaan oo dusha la isaga baxayo oo yaani hawshii dhexmari lahayd nin iyo gabadhiis waxa weeyaan oo meel qarsoodiye ku dhexmari lahayd bulshada la soo wadaagaya wax u eeg oo waxa weeyaan la soo dhexdhigay waxyaabaha aan la yaabay waxa kamida ee maalin dhaweyd aan ku arkay Facebook iyo baraha bulshada
in gabadh da'deedu 20 aan ku qiyaasay intay mikrafoon qaadatay cid kamarad ka duubtana ay diyaarsatay suuqa dhexdiisa ay istaagtay oo dabeetana ay qabanayso odayaal waaweyn oo laga yaabo aabaheed inay ka weyn yihiin dabeetana ay leedahay waxa tahay aabahay baa tahay aabahay ayaa tahay miyaanay ka baqayn gabadhaas iyo kuwa noocaas oo kale sameynaya in ay soo guda galaan xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo leeyahay man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi faljannatu alayhi haram qofkii sheegta aabihi cidaan ahayn iyadoo uu og yahay inaanu qofkaasi aabihi ahayn jannadu waa ka xaraam buu nabigu sallallahu alayhi wasallam u yiri waxa laga yaabaa in dhalinyarta qaarkood oo barankiyada noocaas duubaya oo bulshada la wadaagaya ay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin kaftan baan uga jeednaa bulshadii inaanu ka qoslinaanu doonayna waxaynu ku waleenahay war kaftanku xad buu leeyahay aan la dhaafin oo aan laga talaabin waxaanay tilmaamaan almizaahu fi alkalaam والافعال طبعا مثل الملح في الطعام يعني كفتنكو هذا لدا دخدودا lagu kaftamayo ficilada dhexdooda lagu kaftamayo wuxuu la mid yahay milixda lagu darayo cuntada hadii milixdii cuntadii laga badiyo cuntadii way fasahaadaysaa hadii kaftankii la kaftamayay hadalka dhexdiisa iyo ficilka dhexdiisa la badiyana waxay noqonaysaa in hadaladii iyo ficiladii ay wax weeyaan fasahaadaan oo wax fool xun ay ka soo baxaan waxay shariicadu tilmaantay nabigu sallallahu alayhi wasallam hoog wuxuu u sugnaaday qofka dadka u sheekaynaya dabeetana been sheegaya si wax weeyaan uu uga qosliyo hadii marka ujeedadaadu ay tahay inaad dadka ka qosliso ku soo jiidato lagugu barto dabeetana sidaas darteed aad ficilada noocaas ee muharramka u sameynayso hoogaas nabigu uu tilmaamay ayad waxa weeyaan soo gudagelaysa waxaynu ku soo gabagabaynaynaa anigoon dheeraynaynin war Soomaaliy like raadinta iyo share raadinta iyo comment raadinta iyo subscribe raadintu yaani rabbigeen inaga fogay